soo dhawaada saaxiibayaal mar kale taxniino socdayaan soo wadi doonaa qaybtii koowaad haddii aan soo daawanadaba fadlan channelka dib u noqo soo daawo si qaybaha kale aan soo dedejinana waxaan ka codsanaa inaad muuqaalka like saartaan qaybta labaadna waxay ka bilaabaysaa halkay ku dhamaatay qaybtii hore maalintii xigtana waxaan arkaynaa Joe iskuulkii joogta waxaana si kadib soo maqlaysaa sanduuqa gurida xashiishka oo dhaqdhaqaaqaya markii uu dhawaatana waxaaba kaga soo dababaxaysa gabadh lagu magacaabo Mika gabadhan aad ayuu cabsanaysay markay aragtay Jay waayo waxay iskuulkii ka soo eriyay Jay adeerkeeda Iris sababtoo waxay hadal xun ku tiri saaxiibadii Ila sida awgeed ay inooga soo baxsatay oo ay halkan isku qarinaysay Jayna gabadhan way u naxaysaa waxaanay weydiinaysaa in iyadu ay caawin karto ama qof kale saaxiibadeedu caawin karo Mikana waxay u sheegaysaa in gabadha kaliya caawin karto ay tahay Ila laakiin Ilina ay maanta maqan tahay Jayna kadib gabadhan waxay geenaysaa xamaamka gacmaha iyo wajiga ayna ka soo dhaqaysaa kadibna waxay geenaysaa qaybtii galaaska ee lagu magacaabayay si ay uga soo celiso ardaydii soo eriday laakiin Kiefer markuu sidaa u arko gabadha Mikana meesha joogto ka xanaaqaya waxaanu doonayaa inuu galaaska ka saaro laakiin Jay ayaa kor istaagaysa ku qaylinaysa waxaana ka oranaysaa Miki waxay imika u baahan tahay caawimaad waxaana ka doonayaa bi koranaysa inaad u caawiso sida aniga aad caawisay berigii hore Kieferna wuxuu sii waday inuu Janiska ka faa'iideeyo maadaama rabo inuu Jay jeclaysiiyo kadibna wuxuu ka oranayaa wax walba oo rabta adiga waan ku sameeynaya Yuri oo meesha taagnaa ninkan wuxuu damacsan yahay in la socda ayaa soo eegaya isagoo gabadhan miskiinada beenta loo sheegay uu naxaya Jayna kadib waxay ugu jawaabtay way garan waayaysaa meeshan way iskaga dhaqaaqaysaa marka dambena waxaan arkaynaa Jay oo la socota gabadha Mika lagu magacaabayay si ay u ilaaliso haddii ay mar dambe soo weeraraan ardaydu Jayna kadib Mika waxay weydiinaysaa waxa ka dhexeeya iyada iyo Felix Mikana dhulka ayay fadhiisanaysaa si ay uga sheekayso waxa labadooda ka dhexeeya kadibna halkaa waxaan ka arkaynaa Sian David iyo laga soo meesha soo taagan Jayna waxay ka oranaysaa noo soo dhawaanina halkiina taagnaada kadib Mika ay ka oranaysaa sheekada iyo wad Mikana sheekada ayuu bilaabaysaa waxaan ka oranaysaa markii hore aniga iyo Felix waan is jeclayn maalmaha ka mid ah Ila ayaa timid waxaana sheegtay inay ku aragtay Felix isagoo la taagan gabadh kale laakiin waxay ka oranaysaa hadalkeeda maan waxba ka soo qaadin waqtiga ilaa aan anigu arkay baa laga soo gabadh kale u dhawaanaya sida awgeedna waxaan go'aansaday way ka oranaysaa inaan xiriirka u jiro ninkan laakiin markii dambe wuxuu isku dayay inuu raali geliyo si uu xiriirkeena dib ugu soo celiyo laakiin waan ka diiday ayay oranaysaa kadibna Jay ay weydiinaysaa muu istaahilaa inaan fursad kala siiyo iyo in kale Jayna waxay soo eegaysaa Alex isagoo meesha taagan indhihiisana ay ka muuqato inuu qoomameynayo gabadhan inuu dib ugu soo laabto uu rabo waxaana ka oranaysaa go'aankan waa go'aan muhiim oo adiga ku khuseeya sida darteed adiga tahay inaad go'aan ka gaadho Jay markii gurigoodii tagtana waxay la hadlaysaa in adeerkeeda Iris waxaana u sheegaysaa intay ku qaylisay inuu si qaldan ula dhaqmo gabadha Mika loo magacaabo waxaana u raacinaysaa qofka caayay saaxiibadii Ila inayna ahayn Mika iyadoo Jay hadalkeeda wadana waxaaba meesha soo gelaysa Ila hadalkeeda ayayna maqlaysaa waxaana ka xanaaqaysaa in Iris sidan ula dhaqmay gabadhii miskiinada ahayd Mika lagu magacaabayay markuu arkay inay xanaaqdeen uu ka daba cararaya si uu soo raali geliyo maalintii xigtana waxaan arkaynaa Ila oo imanaysa Jay waxaana uga mahad celinaysaa waxa ay u samaysay saaxiibadeed Mika waxaana ka oranaysaa waan la hadlay Iris waxaana uu ballan qaaday inaanu mar dambe la hadlayn Mika laakiin Ila waxay u sheegaysaa Jay inay ka fogeyso Alex saaxiibadeed Mika maadaama ay ka cabsi qabto inuu mar labaad qalbiga ka jabiyo miskiinada yar Mika laakiin Jay waxay ka oranaysaa anigu awood uma lihitaa waayo arrintaasi waxay u taalaabay ka oranaysaa Alex iyo Mika si ay go'aan uga gaadhaan mustaqbalkooda wax yar kadibna waxaan arkaynaa gabadha Mika lagu magacaabayay oo arday u soo bandhiganayo jacayl waliba ardayda dhexdooda arrintaasina waxay yaab ku noqonaysaa Jay waxaanu ardaygan sheegaya inuu gabadhan in badan raadinayay waliba uu rabay inay xiriir sameeyaan laakiin waa awood u yeelan waayay inuu soo bandhigto Jay ayaana soo dhexgelaysa waxaana ka oranaysaa Mika si fiican uga fiirso go'aanka aad qaadanayso iyadoo aan hadalkii dhammayn waxa meesha ka soo boodisay Ila waxaana ka oranaysaa adiga maxaa ka galay maxaa dadka ku soo dhexgelinaya kadibna Alex ayaa u soo dhawaanaya Mika waxaanu sheegay inuu ka qoomeynayo wax walba ku sameeyay waxaanu ka dalbanayaa inay Janice siiso labadooduna ay meel gooniyo ku wada hadlaan halka dhanka kale ay arkinay Yuri iyo Kiefer oo labadooduba si fiican u eegayay Jay maadaama ay saamaysay arrintan meesha ka socotay ee xiisaale romansiga kadibna Mika ayaa u jawaabaysaa Alex waxaana ka oranaysaa waxaan ku siinayaa Janice kale tan oo aad uga farxinaysa dhammaanba ardayda isku galaaska ayna qaybta ii dhiganaysay kadibna waxaan arkaynaa Alex iyo Mika oo meel wada fadhiya iyagoo si gooniyo wada hadlaya waxaana meel fog ka eegayay Kiefer iyo Jay ilaa ay marka dambe arkaanba Alex oo farxad darteed la qaylinaya maxaa yeelay Mika waxay ogolaatay inay isaga ku soo noqoto isla waqtigaasna waxa Janiskaas ka faa'iideysanayay sidoo kale Kiefer waxaanu soo bandhiganayaa Jay jacayl waxaanu sheegay in rabayadan inuu xiriir la sameeyo laakiin Jay way yaabisa shoogayaan qabsanay waxay samaysanay way garan waaysaa meeshana kadib way iskaga tagaysaa kadib waxay iska aadaysaa suuliga kadibna waxay arkaysaa gabdho fara badan oo meesha wax ku qoray halkaana waxay ka helaysaa fikrad aad u fiican iyadoo go'aansanaysa inay si degdeg u fuliso fikradda
kadibna waxay u tegaysaa Sian iyo David waxaanay tusaysaa inay telefoon soo dhigtay suuliga gabdhaha labadoodana waxay tusaysaa fiideo mobilkeedu duubay taasoo gabadha Freya lagu magacaabo Aysa Ila waxaanay labadooda u sheegaysaa inay imka cadaynka haysa gabadha Freya lagu magacaabo inay Ila cayday Jane kadib gurigooda ay ku soo noqonaysaa si ay fiideoga u tusto in adeerkeeda Iris waxaanay ka dalbanaysaa in ku ciqaabo Freya waxay ku samaysay saaxiibadii laakiin Iris uu ka diidayaa waxaanu sheegayaa inay rabto inay si ka faa'iideysato si ay uga argoosato Freya waxaanu ku oranayaa waan ku fahmay waxaan doonaysan anigu ma sameeyay meeshan uu iskaga tagayaa halkaana waxaan ka arkaynaa inay aad uga xanaaqayso maadaama qorsheedu socon waayay maalinta dambe waxaan arkaynaa Jay oo iskuulka ku imanaysa baaskilida ay soo iibsatay waxaana halka ku joojinaya wiil gaari saaran isagoo weydiinayna meel u tilmaanto Jayna way u tilmaamaysaa meeshuu rabo wiilkan intuu mahad celiyay meesha iskaga tagayaa isla waqtigaasna waxa meesha soo istaagay Yuri waxaan weydiinayaa cid uu yahay wiilkan ay la hadlaysay waxayna u sheegaysaa inuu dariiqa ka lunsanaa sida darteedna ay u tilmaamtay halku rabay kadibna iskuulka ay isku raacayaan waxayna arkaynaa mar labaad Mika iyo Jay wada taagan Mikana Jay waxay uga mahad celinaysaa sida ay u caawisay iyo waliba inay ka caawisay inay qaadato go'aan sax ah Alexna waxay ugu dhiibisay warqad ay ugu jawaabaysay sida darteed Jay waxay u cararaysaa warqadii Alex waxaana siinaysaa isagoo saaxiibadii wada dhex fadhiya halkaas ayaanu ku furayaa dadka oo dhanna way ka warwarsanay waxa ku qoran warqadan waayo cid garanaysa waxay noqon doonto jawaabta Mika ma jirin sida darteed aad ay wada sugayeen marka warqada sida u furo akhriyana farxad ay iskala garan waayay waxaanu ku dhagayaa saaxiibkii Sian aad ayaan u qaylinayaa sidoo kale isagoo aad u farxsan Jay ayuu ku dhagayaa waxaanu sheegay inay aqbashay Mika inay dib iskugu soo noqdaan markay xaaladdu sida u degtana Jay waxay la wadaagaysaa Alex inaan waqti iska lumin toosna ugu tagay Mika sidoo kale dhanka kalena waxaan ka arkaynaa Kiefer iyo Yuri aad u faraxsan muuqaalka xigna maalinta dambe waxaan arkaynaa iyagoo ardaydii ku jira xiisad ciyaaraha ardaydii qaybta Eena waxay joogeen meesha lagu ciyaaro ee lagu tababarto marka la tartamana waxaan arkaynaa in Jay ay ugu dheeraynayso tartanka orodka ee la samaynayo laakiin Kiefer ayaa dhulka ku ridayay iyadoo cararaysa laakiin way ka goosanaysaa iyaduna sidii u riday si lamid ah ay lugta ugu dhigaysaa ardaydo dhanna way yaabayaan markay waxaan ku samayso maadaama ay ogyihiin in Kiefer uu yahay mid aad u cadho badan haddii waxaan aqan uu gabadhan wax ku samayn karo ama dhibaato u geysan doono kadib dhulka ayuu ka kacayaa gabadha ayaanu ka daba cararayaa si uu ugu soo ciqaabo waxay ku samaysay markuu soo qabtana Jay waxay isku daysaa inay iska furfurto laakiin qaab qalad ayuu u dhunkanayaa kadibna Jay way xanaaqaysaa meeshana waxaa imanaya in adeerkeed isagoo raba inuu ka celiyo Kiefer laakiin Kiefer gabadha uu ku dhigaya waxaanu ka oranayaa maxaa kaa galay gabadhan iyada raali ka wax walba naga dhaxeeya halkaana waxaan ka arkaynaa in Jay galba dhinac loo jiidanayo miskiinadu waxay samaysanay way garan waaysaa sida ay u kala jiidanayaana marka dambe Kiefer ayaa gabadha si xoog u soo dhufanaya kadib ardayda wada arkaysa ayuu shuminayaa marka dambe waxaan arkaynaa Kiefer oo la fadhiya saaxiibadii ishana baraf iskaga haya maadaama Jay ay feer ku dhufatay markii uu shumiyey kadib haddana waxaan arkaynaa Jay oo iskuulkiisa ka timid maalinta dambe iyadoo galaaskii ku soo socotana waxay arkaysaa wiil iyo gabadh wada taagan oo jacayl jilaya iyaduna markaaba waxay niyad ku qabanaysaa wixii uu ku sameeyey Kiefer waxaana iskugu sheekaynaysaa bal ka waran haddii uu Kiefer ku jecel yahay laakiin marka dambe intay iskogoosatay odhanaysaa bahal nacasaatay macquul maaha in ninkaas ku jeclaado waxaana iska dhigaysaaba qof feer isla dhacaya iyadoo aad uga xanaaqsan waxyaabaan maskaxdeeda kusoo dhacayeen macquulka ahayn iyadoo dagaalkii iskula jirtana waxaa meesha soo marayay Sian waxaanu weydiinaya inay caadi tahay yeen kale waxaana u sheegaysaa inay caadi tahay laakiin waxay yara dareemaysaa daaldaal kadibna xamaamka ayay tegaysaa si ay wejiga u soo dhaqato halkaana waxay isku arkayaan gabadhii Raaki lagu magacaabayay markay wejigeeda taabatana waxay u sheegaysaa inay diiran tahay oo xumad hayso gabadhuna kadib waxay ka odhanaysaa wax dhakhtar miyaad u tagtay ama dawo ma qaadatay laakiin Jay waxay odhanaysaa caadi ayaan ahay dhakhtarna uma tegin waana iska caafimaadaya ay ka odhanaysaa sidoo kale waxay raacaysaa inaanay dhakhtarka tegi karin maadaama maanta ay imtixaan leedahay sidoo kale Raaki Jay waxay u sheegaysaa inay badan raadinaysa inay la kulanto oo ay la hadasho kadib markii ay isdagaaleen gabadha Freya lagu magacaabo waxaanay u sheegaysaa gabadhani in Freya aanay sidaa kaga hadhayn si kastoo ay wadana iyada uga argoosan doonto waxaanay ka odhanaysaa aniga laftarkaygaba sidaa ay horey ugu samaysay waxaanay sheegaysaa inay gabadhan iyada ku sababtay dhibaatooyin fara badan oo weliba iyada darteedna loogu soo wareejiyey qaybta iskuulka ee sidoo kale gabadhani waxay Jay u sheegaysaa in Iris uu ka warqabo inay qaldan tahay gabadha Freya lagu magacaabo laakiin aan wax tallaaba ka qaadi karin maadaama iyada xiriir qarsoodiya uu la leeyahay Jay laakiin way u qaadan waayaysaa waxaanay ka odhanaysaa waxaanad sheegaysaa marunba Raakina waxay ka odhanaysaa aniga abeentahayga ku arkay labadooda iyagoo labadooda isku soo dhadhawaanaya mar la joogay xafladda saaxiibadood waxay kale u sheegaysaa in Iris ay gabadhani ugu hajabto inay soo bandhigi doonto xiriirka qarsoodiga labadooda ka dhexeeya haddii uu iyada ka hor imaado sidaa darteedna aan iskuulka gabadhan cidna u xisaabin karin waxay doontan ay uga samaysato Jayna kadib Raaki waxay ka codsanaysaa inay u sheegto waxa iyada iyo ka dhexeeyay Raakina waxay ka odhanaysaa anigii si hore ayaan isku jeclayn waxaana u sheegaysaa Freya markay arrinkan maqashay inay iyada la cilowday maadaama Freya ay jeceshahay Sian sidaa darteed ayna anigii la dagaashay ay ka odhanaysaa markii uu meesha soo dhex galay Sian uu sir difaacna isaga laftarkiisana waxay ku kicisay qallaas ay tiri sidaa ogeed Sian waxa loo wareejiyey qaybta iskuulka Jayna madaxa ay qabsanaysaa waxna ay gabadhu
gabadhu u sheegtay oo dhanna way ka yaabisaa kadibna galaaska ay iskaga soo noqonaysaa iyadoo weli ka xanaaqsan madaxuna la xanuunayo wixii loo soo sheegay iyadoo aad u daalanna waxay iska ag fadhiisanaysaa kursigii Kiefer ag yaalay Jayna daalka ayaa kusoo saaidaya madaxa ayayna kor u qaadi kari waaysaa Kieferna uu arkayay waxa ku dhacay gabadhan kadibna waxaan arkaynaa iyadoo la qaybinayo waraaqii imtixaanka laakiin Jay ma awoodayso inay imtixaanka gasho daal dartiina way iska seexanaysaaba waxoogaa kadibna ardaydii saaxiibka ayaan isku galaaska ayaa toosinaya markii toosiyaana way ku xanaaqaysaa waxaynan halka ka arkaynaaba in hurdadii la tagtay oo xataa hal su'aalna aanay ka jawaabin imtixaankiina u dhamaaday marka sida loo sheegana way sii xanaaqaysaa waxaanay ka cabsanaysaa inay imtixaanka dhacdo faamilkeeduna aanu ka ogolaanin in imtixaanka dhacdo maalinta dambena waxaan arkaynaa iyadoo eeganaysa imtixaankeedii jawaabiyo imtixaanka meeshii lagu soo dhajiyey waxaana la socday Kiefer markii magaceeda sidaa u baadhana waxay arkaysaaba in darajo sarreeya ay keentay haddaba imtixaankii aanay waxba ka shaqayn kadibna marka hore way u qaadan waaysaa waxaanay moodaysaaba inay riyoonayso laakiin marka dambe waxay soo egaysaa Kiefer isagoo dhoola ayayna arkaysaa sababtoo ah maalintii imtixaanka la gelayay markuu arkay inay tacbaan tahay isaga ayaa uga shaqeeyay imtixaanka oo dhan sidoo kale waxay eegaysaa darajadii Yuri iyo Kiefer waxaanay ogaanaysaa iyaguna inay keeneen darajo sarreysa waxaanay aad uga xumaanaysaa in arday sidaa darajadooda u sarreyso xariifiinahay ay joogaan qaybta iskuulka ee lagu magacaabay ardayda saaqidiinta la keeno maalinta dambena waxay soo gelaysaa galaaska waxaana arkaysaa Sian oo meel iska fadhiya wax iska cunaya Sianna wuxuu sitaaba wixii laga sameeyay keega Jayna wuxuu ka codsanayaa inay keeg u samayso waxaanay markaaba koranaysaa bal way aan raadsado waxaan ku sameeyaa ama qalabka wax lagu karinayay kadibna meel ay maqla ka soo saaraysaaba waxaanay bilaabaysaa inay keegii samayso ardaydii saaxiibadeeda iskulaaska ayna dhan way wada eegayeen aad ay ugu faraxsanaayeen qaabkii u sameynayso kadib galaaska waxa imanaya Yuri iyo Kiefer waxaanay la yaabayaan in Jay ay galaaska keeg ku dhex sameynayso maanta Kieferna markuu arka qaabka ay wax u karinayso wuxuu ka oranayaa waxaan nasiib leh qofka saaxiibka noqda isaguna uu rabo inuu saaxiibkeed noqdo Jayna hadalkiisa aad bay ugu farxaysaa maadaama uu amaanay iyadoo ku maqan keeg ayaaba ka gubanaya maadaama dabka ay ku ilowday Kiefer ayana ku qaylinaysaa waxaanay ka oranaysaa wadi jeedisay sidaa darteed ayaanu keegu iga gubtay marka dambena Yuri ayaa u imanaya isagoo caawinaya waqtigan saacana waxay arkaysaa Jay Sian oo meel iska fadhiya dhabtiisana ay saarantay shandad gabdheed waxaanay weydiinaysaa qof kale amaba gabadha la shandadan waxaanu ka oranayaa shandadan waxaa iskale gabadh lagu magacaabo Milda iyagoo halkii fadhiyana gabadhii shandada lahayd ayaana soo baxaysaba waxaanay ka xanaaqaysaaba in Sian uu shandadeeda u sii hayay iyadoo kala boodaysa meeshan iskaga tegaysaa gabadha shandada loo sii hayayna intii daalac u raacdayba waxay soo kaxaynaysaa saaxiibkeed Sian waxaanay ku eedeynaysaa inuu lacag kala baxay shandadeeda saaxiibkeeda ayay islaynayaan laakiin gabadhii kale saaxiibkeed ma rumaysanayso Sian markuu ku dhadaan waxba kama xadin waxaan isku soo qaadayaa Sian laakiin Jay ayaa ka difaacaysa waxaanay wiilkii u sheegaysaa in Milda marka hore isaga shandada u dhiibatay wiilkuna aan wax dambiye lahayn oo aan wax lacag shandadeeda kala bixin iyaduna ay arkaysay waag fadhiday meeshana waxa isugu soo ururayba ardaydii iskuulka oo dhan waxaynan arkaynaa in Sian isku dayay inuu isdifaaco laakiin cid rumaysatay ma jirin gaar ahaan waxaan rumaysan ardaydii qaybta ee gabadhii Farey lagu magacaabay ayaan meesha soo dhexgelisay waxaan isku dayay inay eedeysay Sian laakiin Jay ayaa ka difaacaysa waxaan ka oranaysaa adigu waxa tahay qofka ugu dambeeya arrintan soo dhexgalay ay tahay marar badan waxa daba gashay miskiinka yar Sian ay ku oranaysaa waxyaabo badan wad ku eedeysay iyadoo hadalkii la wadana waxa soo boodiyay arday kamid ah ardayda qaybta ee dhigata lacag ayaan jawaabta ka saaray Milda ay weydiinaya inta uu ka xaday Sian wayna sheeganaysaa lacagtii ayaan u siinayaa Sian ayaan ku soo jeedsanaya waxaan ku oranayaa adigu horta ma yahayn inaad wax xado maadaama faamiligiinu yahay faamil taajiriina laakiin Jay ayaa aad uga sii xanaaqaysa dulmiga loo geysanaya Sian waxaanay ku jeedsanaysaa ardayda qaybta ee dhiganisay dhammaantoodna way wada caayaysaa waxaanay ka oranaysaa dulmayinba taqaanaan idinkaa wax liitaa laakiin Yuri ayaa arkay in xaalad faraaq si baxayso Jay ayaanu soo qaadaya galaaska ayaanu soo dhex dhigayaa iyadana way xanaaqaysaa iyadoo boodboodisana waxay imanaysaa Sian waxaanay ka oranaysaa marunba inaad lacagtan xatay oo maal lahuba laakiin Sian wuxuu ka oranayaa anigu waxaasoo kale ma samayn karo manaan samayn laakiin wadabin lay dhigaya Yuri oohin ayaanu bilaabayaa Jay iyo ardayda kalena way lawada ooyayaan way rumaysanayaan hadalkiisa kadib waxaan arkaynaa Jay adeerkeed Iris oo la fadhiya saaxiibadii Ila waxaan ka oranayaa waan ogahay inaad waxaan odhan adigu ka dambayso miskiinka Iris Sian dabinkaadu u dhigtay si loogu eedeeyo in lacagta xaday waxaan weydiinayaa sababta ay sidaa u samaysay Ilina waxay ugu jawaabaysaa waxaan aad uga xumaaday markii ay Jay saaxiibadii ugu celisay dib Sian halkan waxaan ka ogaanaynaa in Ila ay weli iloobin in go'aankii Mika ay dib ugu noqotay Sian ay raad ku lahayd Jay oo ay ka xanaaqsanayd sidoo kalena waxay u siraacinaysaa oo ay Iris u sheegaysaa in aad uga maseersan tahay in wiilasha qaybta ii dhigta ay dhammaantoodba ka taxadiraan oo ilaaliyaan Jay gaar ahaan waxay ka oranaysaa maadaama aniga aanay sida ilaalin jirin markii aan joogay qaybta laakiin Iris wuxuu ka oranayaa waxaan oo dhan waan iska ilowdaa sheekadana halkan aad ku xidhaa waxaan u sheegay in waxyaabaha dhiman oo dhan isagu uu ka faalo qaadi doono
maalinta dambana waxaan arkaynaa Jay iyo Kiefer oo wada socda. Jayna waxay ka codsanaysaa inuu lacag siiyo maadaama ay rabto inay u soo hargunto miskiinka raisiye la dulmiyay, laakiin marka hore uga digayaa inay waxaas kala samayso. markuu arkay inay ku adkaysanaysaa lacagta ayuu siinaya aad ayuu farxaysaa. waxaanay u tagaysaa wiilkii lacagta markii hore ka bixiyay maalintii. wajiga ayayna ka dhufanaysaa, waxaanay ku odhanaysaa lacagtaada xumeed wataasi qaado. qofkii xadina anigu ahaa shantada gabadh kala baxay, laakiin Iris oo meesha soo fadhiyay ayaa arkay. waxaan ku odhanayaa waan ku garanaya inaad difaacayso siiyeen, laakiin wuxuu ka odhanayaa maan filin inaad u eedo dusha iska saari doonto, isagana aad beddelkiisa sheegi doonto inaad lacagtaa xaday. waxaynan arkaynaaba inay meesha soo dhex gashay gabadhii Freya, fiidiyowna ay ka duubanaysay markii ay qiranaysay inay lacagta xaday. waxaanay ka odhanaysaa show lacagta adigaa xaday. waxaanay u sheegaysaa inay fiidiyo ka duubatay, laakiin markay Jay galaaska ku soo noqoto waxaabay ardaydii galaaskooda kala hor imanayaan fiidiyowgii oo internetka ay dhigtay. Jayna afka ay qabsanaysaa wayna yaabisaa. CN ayaa soo kacaya, waxaan odhanayaa aad ayaad u qaldan tahay maadaama aniga intifaacayso, adiguna ma yahayn inaad iska dhigto qofka lacagta xaday. laakiin Jay waxay ka odhanaysaa anigu maba xanaaqsani, fiidiyowgana waan ogahay inuu been yahay. waxaana rabaa inay ardayda ay bedelaan fikirka ay ka qabaan CN uu ku farxayaa, waan ku soo cararaya laabta ayaan u gelinayaa. sidoo kale waxaan arkaynaa dhammaanba ardaydii kale wiilasha ayday galaaskuna inay aad ugu farxeen. marka dambena waxaan arkaynaa Kiefer oo u tegay arday hakaro galaaskooda dhigta si uu fiidiyowga internetka uga masaxo. fiidiyowgina uu ka saaraya wayna ku guulaysanayaan. maalinta dambena waxaan arkaynaa Jay oo faamiligoodii la joogta maadaama uu naadirkeedii weynaya Angelo oo arkay fiidiyowga. waxaanu markaaba weydiinayaa lambarka Kiefer si uu u weydiiyo waxa dhacay. markii uu sheegtana uu wacayaa. Kieferna wuxuu sheegayaa in Jay ay waxaan oo dhan u samaysay si ay u badbaadiso sumcadda saaxiibkeed. sidoo kale wuxuu sheegay inuu iminka istajiyo fiidiyowgii oo dhanna internetka laga saaray. marka dambena Jay ayuu kusoo jeedsanaya, waxaan ka odhanayaa waxaasoo kale in mar dambe soo noqon. marka dambena waxaan arkaynaa in meesha ay timid Jay ayideed, islaantaasina Jay ma jecla. sidaa darteed Jay albaabka ayay ka soo eegaysay. fiidiyowga ayaana loo sheegay, laakiin islaanta waxaa la sheegaya ma rumaysanayso. Jayna marka dambe waxay go'aansanaysaa inay dibadda iskaga baxdo. hudheel ayayna imanaysaa. hudheelkana waxay ku arkaysaa gabdhihii dhiganayay qaybta ee iskuulkooda inay meesha fadhiyaan, laakiin markay sidaa u arkaan ninkii weytarka ka hudheelka ayay u yeedhayaan. waxaanay ka odhanayaan gabadhaasi waa tuugii meesha ka saar, mana rabno inay sii joogto. ninkiina Jay ayuu imanaya, waxaanu ka odhanayaa waxa kuu fiican inaad meesha iskaga tagto. laakiin mar keliya waxa meeshii soo gelayaba Yuri. hadalkooda markuu maqlana wuxuu u yeedhayaa ninkii meesha weytarka ka ahaa. waxaanu ka odhanayaa waxa maanta lagaa cuno dhan anaa bixinaya, laakiin waxaan kaa rabaa gabdhahan Jay beenta ka sheegay inaad ka saarta meesha oo aanay sii joogin. laakiin Jay markay aragto meesha waxa ka dhacaya way yaabaysaa. waxaanay ogaanaysaa in hudheelkan ay mas-uul ka yihiin amaba ay leeyihiin Yuri iyo gabdhihiina meesha ninkii uu ka saaraya markuu ka baqday Yuri inuu shaqada ka heriyo. kadib Yuri Jay ayuu la soo fadhiisanaya, waxaana ku casuumaya qadada. Jayna way uga mahad celinaysaa. waxayna halkaa ka arkaynaa iyadoo xal cunaysa iyadoo weliba aad ugu farxsan waxa dhacay. laakiin si kadisa waxa meesha u imanaya Kiefer isagoo gaadhigiisa la socda. marka arkay Jay oo la fadhida Yurina aad ayuu uga xumaanayaa. qaybtii labaadna halkaas ayay ku eg tahay. haddaba saaxiibayaal, si aanu si degdega ugu soo dhignay qaybta saddexaad, waxaan idinka codsanaynaa inaad subscribe saartaan channelka, sidoo kale muuqaalkana like aad saartaan si uu dad badan u gaadho.